السلام عليكم ودكتور مولود كدر dhamaantiin been salaam halka waxaan ka sii wadi doonaa casharadeenii barashada dawooyinka ee pharmacology markan waxaan galeynaa maxay dawooyinka la yiraahdo adrenergic agonist ayaan markan galeynaa marka casharkan horti intaad gelin waxa aad ku wanaagsan inaad dadaad soo qaadan inaad soo qaadato casharka aan kaga hadlayo sympathetic nervous system autonomous nervous system gaar ahaan laga hadlayo qaybta maxay sympathetic inaad soo daawato marka tan waad fahmi karaysaa taasi waa taas iyo pharmacodynamic kaba receptorska maadaama iyaga halkan geli doono receptorskaas gaar ahaan waxa loo yaqaan G7 kala yiraahdo soo shaqeeya GSG iyo maaragtay GPU intaas bayna soo qaadato intaas waa hordhac oo waa sida ay kala horeeyaan heesta geel way kala horeysaa waa leeyahay ama ooda dhacmay sida kala sareeyaan baa loo kala marka taas waa taas marka casharkan aanu galno halka buugaan ku celin doonaa inta kale karo casharkan waxa aynu ku qaadanaynaa dawooyinkan sida uu hawlgalo marka intaan hawlgalkooda aynaan gelin horta xagee laga soo daayaa waan leenahay maxay waxyaabo loo yaqaano epinephrine iyo norepinephrine oo ah neurotransmitters ay adeegsanayaan sympathetic nervous system u adeegsado aynu soo sheegnay sidee loo soo daynaya marka norepinephrine waxa laga soo daayaa halkan ku bilowno oo waxay leeyihiin presynaptic ay laga soo daynaya marka sidee loo soo daaya waxa jirta walax maaragtay laga helayo iyada cuntada oo la yiraahdo maxay tyrosine baa la yiraahdaa walaxda cuntada laga helayo waxa ay qaadanay qaybtan presynaptic adrenergic waxa ay gelaysaa maxay iyadoo ay marayaan marinkan waxa iyada maartay la yiraahdo sodiumka ay ku xiran tahay oo iyadan laga qaato saadanaadii waxa ay gelaysaa xagii halkan ay gelaysaa wadan tyrosine takan marka ku qorno tyrosine way dabta waxa loo bedelayaa waxa loo yaqaano L-dopa L-dopa marka loo sii bedelo marka decarboxylase iyadoo maanta sii marinayo marka taas marka loo bedelo waxa maaragtay iyadana loo sii bedelaya waxa loo yaqaano maxay dopamine ayaa loo bedelaya dopamine taana isla ka dhexdeeda waxa loogu sii bedelayaa maxay norepinephrine baa loo sii bedelaya marka taas waa samaysankeedii marka norepinephrine tan dopamine deynteedu waa loo baahan yahay sidee hadaba loo soo daaya norepinephrine soo deyskeeda waxaa ka qayb qaadanaya halkan waxaa jira waa sodium calcium canaliska ayaa marka ay dhacdo waxa loo depolarization marka ay timaado ayaa qaybtan depolarization noqoto ayaa waxa soo gelaya calcium sida caadada maxay sameynaysaa marka waxay keenaysaa kuwan in ay ku soo dhaweyso maxay gidaarkan waayo process halka ay ku jirto tan ka soo qad NED ba ku jirto norepinephrine norepinephrine marka halkan ay ku soo dhaweynaysaa maxaa dhacay marka in norepinephrine lagu soo daayo inta u dhaxaysa maxay nerfaha dhexdooda marka waxay gaadhayaan marka loo wadaa halkii ay ka shaqeyn lahayn ama organiski ama cellski marka norepinephrine maxay markaa ka shaqeynaysaa
waxay ka howlgashaa labo receptors bay ka howlgalaysaa oo ah marka halkan qabsanayso kan marka wuxuu noqonayaa aan idhaahno alpha receptor kan wuxuu noqonayaa beta marka alfuna hal iyo mid alfa 1 alfa 2 buu leeyahay kaga hadlaynaa betaduna alfa 1 alfa 2 taasi waa taas sidaasay markaa u tegaysaa ama ay uga shaqaysiinaysaa xubnahan kasoo sheekeynay markii soo gelaynay sympathetic intay waxay qabanaysaa hadday tahay indhaha hadday tahay qanjidhada hadday tahay maaragtay dhammaantood markaa taasi waa soo deynti haddaba waxaa jirta wax maaragtay waxa dub baa loo qaataa iyada lafteeda tan tusaale waa tan sooma reactive waxa la yidhahdaa jira oo dub loo farsameynayo axadii norepinephrine reactaykaas waxaa dib loogu celinayaa buulka ama maaragtay meeshan la yidhahdo halkan oo kale saabadhe halkan ay ku noqonaysa marka halkaa waxaa maaragtay la go-aaminaya in dib loo qaato oo axadii norepinephrine dib loogu soo celiyo halkan iyo in maaragtay la mariyo maxay la marinaya wax la yidhaahdo mono amino oxidase A oo ah mid iyadu burburinaysa norepinephrine taasi waa taas dhanka kale hadhowba waxaa jiri doonta dawo marka halkan loo adeegsado daweyn baa loo adeegsado si loo badiyo norepinephrine waa jiraya marka waa taas oo waa kuwa indirectiga ah sidoo kale waxaa jiraya halkan iyadana haddii ay halkan joogto waxa burburinteeda ka qayb qaadanaya wata norepinephrine haddana mar kale waxaa loo yaqaano COMT oo ka dhigan catechol oo methyltransferase oo iyaduna metabolismka ku sameynaysa oo maaragtay norepinephrine burburinaysa marka taasna daweyn kala loo qaadan ka howlgeli karo iyagana maaragtay lagu adeegsan karaa inaan la burburin saa daraadeed norepinephrine badanaya intaasi waa soo daynteedii marka saasay uga howlgelaysaa haddaba meelahay ka howlgelayaan haddaynu galno sidoo kale aan halkana ku darnay norepinephrine marka waxaa lagu soo deyn karaya iyagana halka waxaa norepinephrine keliya waxaa laga soo daaya iyo dopamine lafteeda halkan qaybtan sare ee adrenal glandka la yidhaahdo marka epinephrine ayaa fara badan aan usoo gaabino ab waxaa la soo daaya 8% baa laga soo deynaya norepinephrine waa 20% ayaa laga soo daaya marka taasi waa taas haddaba say u howlgelayaan siyaabaha u howlgalaan haddaynu ka hadalno maxay marka ay ka howlgelayaan manigation receptorska marka qaar baa jira alpha 1 la yidhahdo alpha 2 beta 1 beta 2 iyo beta 3 ba aynu markaaba ku dhaqso uga gaadhsiino dhanka isha waxa ay ku sameynaysaa maxay waxay ku sameeyaan waxa la yidhaahdo contraction gaar ahaankee waxa ay ku sameeyaan muruqa la yidhaahdo linear ka la yidhaahdo ay ku sameynayaan maxay muruq waxa weeyaan kan linear radial baan ujeeda radial masak waa kan aruursan ee saasoo kale u samaysiin noocaasoo kaliya marka haddii kan la aruuriyo saa loo kala bixiyo muxuu noqonaya waxaa badanaya maxay wiilkii waa kala madow oo qofku waxaa ku dhacay inuu maaragtay in wiilkiisu kala baxo ama waxa la yidhahdo maxay midriasis baq imanaya taasi sameynaysa marka kala bixintaas ay kala bixinaysa maxaa loo adeegsan karaya dawadan ka howlgala waxa loo yaqaanaa
efrinta waxaa loo adeegsan karaa maxay in lagu diagnosis kale ama examination kale la sameynayo isho kale lagu baarayo in lagu kala fogeeyo wiilka saadareed isha dabadeeda hadii la rabo retina in la eego loo adeegsado maadaama intaa contraction ku sameynaya dhankan muruqyadana sidoo kale waxay ku sameynaya ururin bay ku sameynayaan contraction maxay taasi keenaysa maxaa keenaya inuu contraction dhaco waxa keenaya waxa loo yaqaano maxay waxay kor u qaadaan peripheral total peripheral resistance ay kor u qaadaan TPR taa haddii kor loo qaado maxaa dhacaya waxaa dhacaya in xididada aruuran haddii xididada aruuran maxaa dhacaya waxaa dhacaya in kor loo qaado maxay venous maaragtay waxay kolka dhiiga ku noqonaya wadnaha oo periodka kor loo qaado ayaa dhacaysa marka maxaa loo adeegsan karaa iyadana phenylephrine mar kale haddii uu dhaco maaragtay hypertension oo kale qofka ku dhaco waa loo adeegsan karaa oo cadaadiska dhiig hoos u dhaco marka watan dee haddii dee xididadii dhan soo aruurinayso dhiig badan wadni ku celinaysa markaa waa loo adeegsan karaya taasina waa taas dhankan kale xagga kaaji haysta waxaa jira muruqa bartan ku yaala sphincterka ah ayay ku sameynaysaa iyadana contraction ururin bay ku sameynaysaa muruqa hadday contraction ku sameyso sphincterka aan qorno contraction hadday ku sameyso maxay qof ku keenaysaa in qofkii kaadida xijisto marka taasina waa taas hada waxa lagu qori karaa maxay qofkii dee kaadida waayey ka qubanayso kale marka keenaysa kaadi ceshisho fara badan marka aynu soo socono dhankan beerka maxay beerka keeni karaysaa beerka waxay ku keenaysaa waxay kor u qaaddaa waxa la yidhaahdo maxay glycogenolysis glycogenta ayay kor u qaadaysaa burburinteeda ayay kor u qaadaysaa dhankan kale waxay alfa-1ka markay dee ka howlgelaysa dhanka keliyaha waxa ay hoos u dhigtaa soo deynta reninta marka waa taas sababta haddaba dhankan kale aynu kusii darnay marka arrintan soo noqon doonaa xakan xiniyaha ama ragga maxay ku keenaysaa waxay ku keenaysaa in uu dhaco maxay ejaculation in dhaco waxay kor u qaadaa maxay ejaculation biyo baxay keenaysaa ayay kor u qaadaysaa maxay waxaa dhan ku keenaysaa markaas sababtu waa maxay haddaynu halka ku yar noqono dhankii maaragtay pharmacodynamic waa inay kasoo sheekeyna wixii oran jiray maxay G7 markaan kasoo sheekeynay maxay nidhi kuwa haddaynu tan waxay alfa-1 waxa weeyaan waa maxay waxay ahayd waxaa loo yaqaanaa GQW couplet haddii GQ couplet tahay maxay samaynaysaa marka waxa ay kor u qaadaysaa waxa loo yaqaano PLC ama phospholipase C phospholipase C muxuu isaguna sameynaya wuxuu kor u qaadaya waxa loo yaqaano N-acetyl triphosphate N-acetyl triphosphate kuna maxay sameynaysay hadda waxa ka soo qaaday waxa ku soo qaaday aan hordhac uga dhigay waxay kor u qaadaysay calcium ta sidoo kale waxay sameynaysay waxa loo yaqaano ay kor u qaadaysay maxay DAC D-acetyl glycerol marka calcium ta kor loo qaado maxaa meeshan keenaysa inay kan contraction sameeyo contraction kan laftiisa marka ururintan ay keenaysa maxay waxa keenaya waa calcium ta ka soo baxaysa caadayn la soo deynayo calcium la soo deynayo maxay keentaa muruq ururin bay keentaa markaas waa GQ couplet kaas
ayaan u ku socon tan haddaba aynu nimaadnaya alpha 2 alpha 2 iyagu maxay sameeyaan alpha 2 iyagu waxay ka howlgalaan nooca loo yaqaano g maxay I waa inhibitor way joojinayaan kaasti maartay membrane-ka caawinaya muxuu sameynaya kan wax baa la joojinaya marka ay haddaad noqoto gi sidee ku dhacaysa marka waxa ay hoos u dhigaan waxa la yidhaahdo maxay waxay hoos u dhigaan adenylyl cyclase adenylyl cyclase hoos loo dhigo maxay sii keenaysaa waxay keenaysaa cyclic AMP in hoos loo dhigo marka kuwan oo keenay inaan maartay phosphorylation-ka aanay dhicin ama canal isla furan marka baa xidhaya weyn waxaas haddii taas dhacdana mar kale waxa weeyaan thermodynamic inay ku noqoto halka weeyaan dadka fahantan okay marka taas mar haddii waxbaa la xidhaya marka maxaa la xidhaya waxa weeyaan waxaa xidhaysa alpha 2 receptors halkan soo ilaaway halkan ku tala marka wada aynu ku dardaro alpha 2 bas marka muxuu sameeyay alpha 2 gan waxa ay maaragtay dhiirigelinaya in la soo daayo maxay noradrenaline fara badan marka tan hadii tan activate gareeyo waxay sameeyaan in la joojinayo adrenaline la soo daayo joojinaysa marka saasay daraadeed bitan uga hawlgashaa marka waa alpha 2 marka muxuu sameeyaa waxa uu halkan ku keenaya qofka ku keenaya gaar ahaan dawooyinkan clonidine iyo methyl doobaha dawooyinka la yiraahdo waxa ay sameeyaan hoos bay u dhigayaan maxay cadaadiskii dhiig ay hoos u dhigayaan vasodilation bay sameeyaan taas waa taas dhankan kale waxa ay ka hawlgelaysaa maxay oo waxay hoos u dhigaysaa maxay total prevalent resistance saasay hoos u dhigaysaa marka waxaa loo adeegsan karaa maxay qofka uu hayo hypertension gaar ahaan tan iyo tanba tan waxaa loo adeegsan metalobaha waxay loo adeegsan dumarka uurka ay u wacanta dhankan ganaca maxay sameynaysaa waxa ay kor u qaadaysaa waxay hoos u dhigaysaa indhaha waayo waa nin waxbaa la xidhaya waxba lasoo diimaya mugti tana waa la xidhaya marka shaqadeedaas marka waxa ay keenaysaa maxay waxay hoos u dhigaysaa insulinta in la soo daayo ay hoos u dhigtaa marka waa taas saasay kaasama shaqaynaysaa haddaba aynu nimaadna kuwa kale oo dhan waxa ay noqonaysaa inagan uma saxnayba adenylyl cyclase marka waxa waa kuwa kale waa s hadday tahay beta 1 beta 2 beta 3 ama maaragtay dopamine intuu waa stimulation marka waxay ka dhigantay waxba la soo diinaya waxa la kor loo qaadaya maxay adenylyl cyclase taasoo iyaduna kor u qaadaysa maxay cyclic AMP kuwaas ayuuna keenaya maxay in phosphorylation dhaca ama meelo aaday canal isla furo stimulation s way waa la stimulate garanaya taa xasuusno estas saa daraadeed haddaba marka in nimaadna halkay kuwana ka howlgalaan waxay kuwana ku yaalaan maxay wadnaha gaar ahaan halkii waxaa loo yaqaano SA node kana ku qorno SA nodeka sidoo kale FAF nodeka idhaahdo ayay ku yaalaan sidoo kale burjkinjiga waa ku yaalaan marka labadana kasoo qaadanayna xagga wadnaha sidoo kalena muruqyadana waa ku yaalaan muruqyada wadnaha marka maxay keenayaan haddii isku soo darno waxa ay keenayaan inay kor u qaadaan maxay heart rate marka ay ka hawlgasho heart rate way kor u qaadi kartaa sidoo kale maxay keeni kartaa waxa loo yaqaano chronotrope ay keeni kartaa chronotrope oo ah in oo tan iska chronotrope and dramatrope tan chronotrope waa heart rate kor loo qaado sidoo kale waxay keeni kartaa maxay tropi wax la yiraahdo tropi oo ah in kor u qaado FV marka waa tan iyo tan kor u qaad waxay kor u qaadaysaa shaqadooda
dhanka kale waxa ay keeni karaysaa maxay waxa loo yaqaano oo ay kor u qaadaysaa maxay shaqada muruqyada contraction bay keenaysaa maxay ayay muruqyada wadnaha ku keenaysaa marka intaas waxba hadday keenayso maxay keenaysaa inotropy markaa noqonaysaa markaa tani waxa weeye waa inotropy la oranaya marka muruqyada shaqada wadnaha ayay kor qaadaysaa marka haddii soo duubno maxay iyadana keenaysaa waxa ay keenaysaa waxa weeyaan ay kor u qaadaysaa shaqada wadnaha maxaana loo adeegsadaa waana dawada loo yaqaano dopamine waxa loo adeegsadaa maxay heart failure ee loo adeegsanaya marka waxaan ku qorayaa uni shaqada ay qabanayso marka inta wanaagda ku darayo waxa loo adeegsanayo heart failure ama qaraabo ayaa loo adeegsadaa dhankan in kelida maxay sameeyaan waxa ay kor u qaadaysaa soo deynta maxay reninta reninta ayay kasoo deynaysaa chichi celleska maaragtay kuwaas meesha ku yaala juxtaglomerular celleska ayay kasoo deynaysaa okay intaasi waa intaas haddaynu kusii darno in dhankani b2 kuwani waxa ay anigi waa stimulation iyaguna markaa maxaa stimulate garanaya waxa weeyaan canal cellska waxa ku dhacaya waxay keentaa vasodilation bay keenaysaa halkan waxay hoos loo dhigaa maxay total prevalent resistance markaa maxay keenaysaa waa vasodilation ayay keenaysaa hoos baa markaa ay u dhigaysaa dhankaas dee dhiiggii ku noqonayay wadnaha hoos loo dhigaya haddii dhiigga hoos loo dhigana maxay waxaa loo qaadan karaya dee hypertensionka marka salmeterolka badanaa hoos bay u dhigaysaa okay taa waa nidhi marka dhankan maxaa ayadana ay ka samaynaysaa waxay ku samaynaysaa bronchodilation bay samaynaysaa waa bronchodilation bay samaynaysaa haddii bronchodilation samayso maaragtay b2 gasha markay hawlgeliyo maxaa loo qaadan karaa waxaa loo qaadan karaa asma xanuunka asma ama xanuunada kale ee muruq hay'aday ku dhacsan wada aruuriya qaatan dana ku tala salmeterol iyo albuterol oo salmeterol iyo waqtiga dheer tanna waxa weeyaan waa waqtiga koobantana waa long ayaa loo siiya waa degdeg marka xaalad degdeg albuterol loo siinayo taas waa dhankani kale ee urka xanuunjada makaanka xiraado albuterol baa loo qaataayo waxay ku samaynaysaa maxay dilation wanaga soo sheeg marka way kala bixinaysaa haddii ur kala bixiso maxaa lagu siiyaa waxa lagu siiyaa qof haweeneyda xilli ka horeysa xilligeedii ay dhali lahayd foosha ku timaado si waqtiga foosha loo dheereeyo ayaa la siinaya marka waa dee waxay ku samaynaysaa dilation bay ku samaynaysaa muruqyada ay ku samaynaysaa muruqyada saa daradeed de foosha markay qabanayso haweenku waxa weeyaan urur baa ku dhaca muruqyada saasa marka ay muudeen lasaraa la rabaa mugta ayay ku samaynaysaa marka waa dawada terlineta la dhahdo ee loo qaadanaya dhankan kale ee ganaca maxaa dhacay dhankan ganaca waxa kor loo qaadayaa glycogenolysiska ayaa kor loo qaadaya waa maxay in glucosta laga dhigo caadi glycogentii waa tii kaydsanay lysis la burburiyo glucose bana laga dhigaya marka aynu kusii soconno xaggan ganaca waxa ay kor u qaadaysaa soo deynta insulinta ayay kor u qaadaysaa dhankan muruqyada sidoo kale waxay keenaysaa maxay
generalizes وأيضا والله كهذه iyada lafteedana muruqyadana waa lagu kaydiyaa saa daraadeed ayaa maxaa keenaa dawooyinkan hadaynu geli doonaa macaanka iyo dawooyinka markaynu marayno casharada kala hadlo ayaa waxaa timaada waxay keeni karaan macaan waayo haddii labadan ay sababayaan dawooyin qofka qaata haddii sababaysa maarag in glucose badan lagu soo daayo dhiigga dee dhiiggii sonkorta dhiigga kacda haddii sonkorta dhiigga kacdana waad garanaysaa waxay keeni kartaa sababtaasaa keenaysa in insulinta u kacda iyaduna maadaama halkan fascillation markuu dhaco maxaa ku dhacaya sababta insulin haweey waxa weeyaan dhiigga tegayay unugyada maaragtay vesselska fara badan saas markaa insulin fara badan loo soo deynaya sidoo kalena waxay loo soo deynaya haween kuwan ay kor u qaadaysaa glycogenolysis ma hadii samaynayso sonkorta fara badan waa insulin fara badan loo soo daayo saas markaa taasina taa ku tahay dhankan beta 3ga iyadu maxay sameeyaan markay ka hawlgalayso maaragtay noradrenaline waxa ay samaynaysaa waa dilation bay ku samaynaysaa muruqan kaajahaysa ku yaala marka maxay samaynaysaa kan weeyaan waa kan maaragtay la yidhahdo maaragtay trigonal baa la dhahdaa kaas ka gudaha ku yaala maxay ku samaynaysaa marka waxay ku samaynaysaa dilation ay ku samaynaysaa waa relaxation bay ku samaynaysaa waxa weeyaan haddii jiro maaragtay oo overactive maaragtay hadday jirto qofka oo dee ay sababayso xaalad kaadida aan ceshanayna markiiba kolba u baahan suuliga galo qofkaasoo kale haddii dawladan loo qoro dilation bay ku samaynaysaa waxa ay siinaysaa waqti markaa kaadida qofku qaadan karo laakiin markan cilada waxa weeyaan qofka oo maaragtay daqiiqadiiba inteeda kaadi soo gasho la raba in la saaro markaa taasoo kale loo qoraya dawadan la yidhahdo mira background sidoo kale waxay samaysaa waxa loo yaqaano maxaa lipolysis okay burburinta ay ku samayn kartaa maxay baruurta taata hadii burburisan waxay kasoo ka dhigaysaa maxay waxa laga samaynayaa dee wixii la oran jiray maxay gluconeogenesis baa dhacaya hagaya beerka iyadoo laga samayn doono glucose loo bedeli doono marka fatty acidska marka waa taasna haddaynu u nimaadno qaybta aan soo marayno waxa la yidhahdaa kuwa la yidhahdo waa direct acting way ayaynu kasoo gudbin oo kala ah selective iyo non selective gaar ahaan selective waxa weeyaan maxay selective wuxuu ka dhigan tahay dee waxay keliya dawadan la yidhahdo phenylketonuria keliya alpha 1 bay ka shaqaysaa kuwan keliya alpha 2 kuwan maxay alpha 1 waa selective kuwaas qaar baa jira non selective ah tusaale mid baa jirta ka dhex shaqaysa labadan oo beta 1 iyo beta 2 kala dawadan maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa iso isoproterenol dawadaasi beta 1ka waxay la mid tahay beta 2ka labadaba waxa laga wadaa way ka hawlgeli kartaa kuwaas waxay ahayd daba selective non selective baa jira oo sare epinephrine non selective waxay ka hawlgeli kartaa epinephrine waxay u badan tahay beta 1ka iyo beta 2ka ay ka hawlgashaa laakiin haddii dooskeedu sii bato waxa waa epinephrine haddii dooskeedu sii bato alpha 1 way ka hawlgelaysaa marka haddii la sii bato laakiin waa marka ay hooseyso ay beta 1 iyo marka waa sababta anaphylactic shock iyo waxyaabaha loo siinayo qofkaas epinephrine norepinephrine waxay ka shaqaysaa iyadu waxa weeyaan waa alpha 1 soo kale beta 1ka waa ka hawlgashaa alpha 2gana waa ka hawlgashaa laakiin beta 2 waxay kuma jirto kama hawlgasho iyadu beta 2 inta kale way ka hawlgeli kartaa dopamine iyaduna waxa weeye waa non selective oo wax ka dhigantay waa ka wada hawlgeli kartaa meelo badan laakiin iyadu waxay ku xirantay dooska waa dopamine 1 receptors kuwa la yidhahdo way ka hawlgashaa haddii la sii badiyo beta waa ka hawlgeli beta 1 haddii ay sii badatana kuwa kale waa ka hawlgeli kartaa marka laga wada laakiin kuwaas ay u badan tahay dee alpha marka 1 waa ka hawlgelaysa taasina waa qolada la non selective oo aan isku soo dhaafno ah direct action maxay ka dhigantay waxay toos u hawlgelayaan bartan
هذا تليرت هذا receptors كاسي كهم قليل ما هالكم receptors كا وواحد وش قينا يعني ما ربته يصير كون وكال دي دوي كده السيوي سيدا نورابينفرين وكال العادي لو سو ديني أما هالكلام نورابينفرين صوته كلام ما وش قينا يعني بس لكن كون واصلت وكلات أرد كون وحوي وكون الدورين ابنفرين دي السود عليه وحويان فانتشروا في الريسبتور وي والريسبتور هذا كوي عيا لما أنت تكون طيب حبين كسو كوبنو دواينك لا يلاحظ محي indirect act هذا indirect act نقول حويان توس وقام حاول قلنا ريسبتور إسكي ستة دبانوي وستة دبان doorashada dadban ma jirto si dadban bay kuwan u dhiirigelinaya weeyaan maxay ka dhigantay soo deynteeda ayay ka hawl qaadan tusaale hadday dawada xidhayso tusaale kale waxyaabo jira la qaato kale MOA-da oo kale maaragtay waxyaabo ku jira khamri ku jira kale mono amino oxidase kaas dhiirigelinaya marka waxay joojinayaan u jeeda taasana norepinephrine badanaysa saasa marka hawlgalkan ku dhici kara fara badan dhanka kale dawadan oo kale anfitamiiniska kuwa la yiraahdo waxa kamid ah aqal dawadan la yiraahdo maxay metil phenidate dawada la yiraahdo maxay sameynaysaa reuptake halkan ay soo sheegnay dawada soo epinephrine dib looma qaadin reuptake ay xidhaysa marka reuptake hadday xidho waxa dhacay wax badanaysa marka maadaama epinephrine dib loo qaadan epinephrine badan la soo diinaya fara badanaysa waxaan jira norepinephrine marka waxa loo qaataa waxa loo yaqaano ADHD oo ah hyperactive waxa la yiraahdaa maxay attention deficit hyperactivity disorder waxaan kaas dadka yarku dibada ku badaya waa qof maartay fojignaantiisa waxaan jeedayn tii soo jeedkiisa qofka hoos u dhacaya waxbarashadiisa kala hoos u dhici karta qofka waxa loo qaadanaya maartay ilmaha yar marka waa psychiatriga inaan maartay waxbarashadii xagga ku fiicnayn marka taas marka loo siiyaa si qofka soo jeeda karto qaybtan ay ka hoggaanayso xawayaan qaybta loo jeedo fight and flight aan kasoo sheegnay wasabtan la idinku soo afay xawayaan waa qaybta qofka soo jeedisay qofka haduu waxba halo kala arko big oranayo marka sababtaas marka loo siinay kuwan dawladda noocan kala howlgala norepinephrine kor u qaadaya si qofkan u soo jeedkiisu u fiicnaado sidoo kale waxaa jira qolada la maartay pseudoephedrine ama ephedrine waa jirtaa pseudoephedrine tan badan lama qaato laakiin hadda tan baa dawadan jirta marka pseudoephedrine waxa loo qaadanaya iyadoo maxay xanuunadan maaragta qof markuu nasan ku xirmo kale sanka xirmo waxa Soomaaliya san xirmo Soomaaliya waxa weeyaan marka waa kuwaas ayaa loo qaaday dawooyinkaas wax laga durigo kale baa qofka la siiya waxaana maaragtay control ku sameynaysaa vessels kala balaadhay hadda maaragtay xididada haday bataan inta kala baxaan biyo badan baa la soo diinaya mugti marka waxaa soo dhanbay xidhaysa sidaas marka kuwana loo adeegsada marka halkaas in dib u soo koobina qaybtan haddii aad casharkaas daawatay dawooyinkaas waad baasan tahay la sii wadaag cidii kaa jeclaan lahayd maaragtay inaad kula wadaagaan ama casharkadan ka faa'iidaystaan صار كهلت إلى هذنكي مركا سان دو وقاعد إن لا صعدة إنت مارتي تما يسطي وبدنا صار لايك توبل مركا وإنت تستقصو كوبينه يسألك يسمع قدام به إن شاء الله السلام عليكم